واتعدى في البلايص بس واتعمتي عمرتي وجينا في عمرتي dhacdo argagax leh ayaa ka dhacday degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir kadib markii nin xaaskii uu qabay uu mindi ku dilay. Waxa uu dilay lacag $25 ah iyadoo sheegtay in xataa $2 oo cunno ugu iibiso caruurteeda aysan haysan. dhacdadan la yaabka leh ayaan muuqaalkan ku eegi doonaa ugu horreyn follow bogan Xuseen Xaaji Xasan muuqaalkan la saar siina share gare si Soomaalida dhan ay u gaarto. waa dhacdo la yaab leh oo saacad ka hor ka dhacday degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. hooyo haysata 12 caruur ah ayaa ninkii qabay ku dilay mindi nooca geela lagu qalo ah. ninka oo lagu magacaabo Maxamed Shamsi ayaa naagtiisa inta uu dilin ka hor waxa uu weydiistay $25 oo uu u sheegay inuu mooto ku samaysan doono. waxayna xaaskiisa u sheegtay in xataa $2 oo caruurta ay cunno ugu gado aysan hayn. kadib waxaa dhacay fal argagax leh sida qoysku sheegay. ninka waxa uu dilay xaaskiisa waliba isagoo ku dilay mindi kuwa nooca geela lagu qalo ah. marar badan ayuu kala daalay mindida oo meelo badan ayuu kaga dhuftay. ninka falka dilka ah geystay ayaa xaaskiisa oo uu dilay waxay u dhashay 12 caruur ah oo guri ku wada noolaa dhammaantood. qaar ka mid ah caruurta oo shooq qaaday ayaa miir daboolmay waxauna ahaa fal argagax leh oo darisku qoyska ay la yaabeen. waxaa meeshaan ku il daran oo jooga caruurteedii waaye waxaad aragtay. ninka dilay ma aha ninka fog waa ninkii ayada ciyaalka ee u dhashay oo xaasiisay ahayd. wuxuu ku haystay oo ku qabsaday lacaga ayada ay leedahay oo raba markaas $25 lacag si mootaan rabaa inaan ku samaystay. $25 lacag ma haayo dhahday. $25 lacag ma haayo, $2 cashaan ku karsadaan waaye. maba ii way kartidoo dhaha waa haysataa lacagta isii. waa doodeen hadday doodeen kadib wiilkeeda oo 15 jir oo guriga markaas kula sugnaa waa soo dhex galay. habartii adoogiyuu kala qabtay hooyadiisuu bannaanka u soo bixiyey. hooyadii bannaanka hadduu u soo bixiyey wuxuu yidhi hooyo aabbe anaa kaa celinaayo guriga ayayaan ku geynaahay inta sii joog kabaan soo gashanahay. adoogina qolka uga soo tagay. wiilka wuu caga caddaay dacaskiisuu doontay. dacaskii mar allaale markuu u laabtay wiilka markuu dacaskii u laabtay oo dacaskii doontay wuxuu arkay habartiioo meeshaan adoogii tooreydii oo midida uu la kortaaya. toorey xitaa maba ahanbo midida geelka lagu qalo waayo oo xoolaha lagu birayo waa aragtay. mididaas waaye wuxuu uu ku dilay. walaasheed dawladda waxaan ugu barayaa inay cadaaladda ii soo qabato. caruur ayay ka tagtay. ninkii dilay walaashay inaa la soo qabto oo maxkamad la soo saaro. afartaana hadda u yar midkaana hadda u yar ciyaalka dhan rajay lahaayeen. ayadaa ximin aabbiyo ximin hooyaba ayadaa heese. hadeertaan waa kana waxay leeyihiin hooyo rajadii hooyo ee lahayd mana oofinaysaa. marka cadaaladda waxaan ka baryaa inaa la soo qabto ninkaas meel alla meeshuu joogo. aniga walaasheed ka weynaan ahay. wuu galay gudaha mindiyuu soo baxsaday habartii oo bannaanka fadhisay oo mindidii ku celceliyey. wuxuu aga dhuftay halkaas naaska hoostiisa garabka gadaal haddana naaskii oo meel kale ah haddana garabka adiga waxaa ku dhacday ugu yaraan 6 iyo 7 camal mindi ahaa ku dhacday. mindiyada oo geela lagu qalano waayo mindiya yaryar ma aha. ma fahmaysaa sharaacadda waxay dhigaysa ninkaaseeto inaa noola soo marsiiyo. nin naagtiisa dili sharciga wuxuu dhigaayo ha noola soo qoro. ninkeeda waa 12 cunug bay u dhashay. hal cunug waa ka dhintay 11 u joogto. ninka falka dilka ah geystay ayaa ka baxsaday goobta uu dilka ku geystay oo ahayd gurigiisa waxaana ku raajooga laamaha ammaanka. qoyska xaaska la dilay ayaa dalbaday in cadaaladda la marsiiyo ninka. haddaba marka ugu horreysa u ducee xaaskaasi marka xigtana muuqaalka laagsaar siina sheergare si ay cadaalad u helaan qoyskaasi. ku soo biir bogan Xuseen Xaaji Xasan si muuqaalo kuwan la mid ah aad u hesho maalin walba. mahadsanid.